xiisale dhamaantiin ba ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan tusmadan gaaban waxaan uga hadli doonaa waa maxay saameynta siyaasadeed ee uu Farmaajo ku leeyahay Soomaalida waxaan iftiimin doonaa shakhsiyadda mudane Farmaajo iyo sababaha uu ku kasbaday dareenka shacabka Soomaalida ku soo dhawaada ha noolaato aniguna waa Ayaan la Xuseen Cabdi adiguna waxaa tahay Farmaajo wadaniga dhabta ah dama Soomaali weyn wadnahooda degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu tilmaamaa siyaasiga ugu saameynta badan guud ahaan mujtamaca Soomaalida waqtigan marka la barbar dhigo guud ahaan musharaxiinta u tartamaya villa Soomaaliya shakhsiyan anigu aqoon uma lihi Farmaajo mar kaliya ayaan kulanay markaasi oo ahayd markii uu iska casilay xafiiska dhaqan ahaan ma jecli la kulanka siyaasiyiinta Soomaalida oo maba aqaano sabab aan ugu muraado la kulankooda waxaan u arkaa dad qaawan oo ay warbaahintu dhar u galiso laakiin Farmaajo waa iga duwanaa marka aan xaqiiqda ka hadlo madaxdii soo martay dalka oo waxa uu ahaa shakhsi abuuray rajo iyo kalsooni cusub oo Soomaalida ka dhaxdhalatay inkastoo aan anigu hubin in Farmaajo wax ka bedeli karo xaalka dalku ku sugan yahay waqtigan haddana waxa xusid mudan in waqtigii uu ra'iisul wasaaraha ahaa uu wax weyn ka qabtay hanaanka dawladeed ee dalka waxa la sheegaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ku guuleysta inuu si wanaagsan u maamulo dhaqaalaha yar ee dawladda soo gala isla markaana joogteeya mushaharaadka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya waxa kale oo Farmaajo dadka amaana ay ku amaanaan inuu saaxiib dhow la ahaa ciidamada dalka Soomaaliya isla markaana uu ka warqabay noloshooda waxana uu ku booqan jiray saldhigyada ciidamadu ay deganaayeen iyo sidoo kale furmaha dagaalku uu ka socday waxa uu dhowr sarkaal xilka uga qaaday eedeymo la xiriira inay isdabamarin ku sameeyeen saadka ciidamada dalka Farmaajo waxa la sheegaa inuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee ku talagalay inuu xadido qarashka faraha badan ee safarada dibadda uga baxa dawladda kuwa uu ka maarmi waayana waxa uu raacayay diyaaradaha shacabka loogu talagalay waxa la xusuustaa sida uu ka sheekeeyay diyaaradu kula safray shacab ka safray magaalada Muqdisho kuna socday Nairobi waxa uu mas'uulku goobjoog u ahaa way aragna u ahaa tacadiga iyo silica ay la kulmaan dadka Soomaalida ah ee raaca diyaaradaha ku socda wadanka Kenya ee ka safra dalka Soomaaliya Farmaajo waxa sidoo kale uu diiday inuu dego hoteelada qaaliga ah ee lacagta badan lagu bixiyo ee ay degaan madaxda la midka ah saameynta siyaasadeed ee Farmaajo uu ku leeyahay shacabka Soomaalida waxay soo ifbaxday markii ay soo baxeen wararkii sheegayay inuu iska casilayo xilka ra'iisul wasaarenimada qiyaastii bishii June sanadkii 2011 kadib markii la sheegay inay jirtay faragelin dawladaha shisheeye ee ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay ku doonayaan inuu xilka uga tago arinta ugu weyn ee Farmaajo lagu aaneeyo ee u sababa inuu xilkaasi ka tago waxa la sheegaa inay tahay amar uu siiyay qaramada midoobay iyo hay'adaha kale oo ahayd inay ku shaqeeyaan magaalada Muqdisho haddii ay ka shaqeynayaan Soomaaliya laakiin aysan suuragal ahaanaynin inay fadhiyaan Nairobi kana shaqeeyaan Soomaaliya shacabka ku nool caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan dibadda ee Soomaalida ah ayaa dareen isku mid ah ka muujiyay iscasilaada Farmaajo waxaana jiray dad u badnaa dumar oo kaga hortagay garoonka diyaaradaha mar uu ka soo degay kuwaasi oo ka dalbaday inuusan niyad jabinin annaga shucuurteena iyo damiirkeena iyo jacaylka xukuumadda prime minister ka tahay ayaana soo kicisay waxaan nahay haweenkii Muqdisho dhalinyaradii askartii uqaashi maanta magaalada waxaan ka rabnaa laba maado in aad maaragtay badan maraakiib la keeno dal kale hadaad noo haysid aadna rartid hadaad noo hayna dalkeenan rabnaa iyo xukuumadda adigu la joogtid waxaan kaloo ka rabnaa laba maadaan rabnaa waxaan rabnaa natiijada cid kale oo dhagahayna u furiin ma jirto maanta shacabku ay dhageysanayaan waxaan ka rabnaa inaan guryaheena ku noqonayno iyo inaan shaqadeena wadanayno waxaan rabnaa waxaan ku seexano xala maana seexan waxa way qalbigaana laga dilay indhaha laga tuuray dhibaato iyo basaas isugu kaay daran gaajada nooga maxaan rabnaa haye haliskooda carruurta haloo tago soo ma garan waa mahadsantihiin maanta hadda siidkaan jiifanayna maya
نتيجة وفي عنتها إن شاء الله وحبوا خير سيف عبد كل ما دونان si kastaba ha ahaatee farmaajo waa iscasilay waxaana uu sheegay inuu u tanaasulay danta dalka laakiin taasi ma ahayn mid raalli gelinaysay kumanaankii shacabka Soomaalida ahaa ee wadaniyada ku garab istaagay dadka eedeeya farmaajo waxay sheegaan in xilkaasi uu dhaafsaday lacag malaayiin dollar inkastoo warkaasi aanu jirin ilaa iyo hadda cid cadeyn karta laakiin waxa hubaal ah in handadaad iyo hanjabaad joogto ah uu kala kulmay ciidamada shisheeye ee jooga Soomaaliya oo uu sheegay inaysan ammaankiisa mas'uul ka ahayn haddii uu isku sii dhajiyo xilka ra'iisul wasaarenimada Soomaaliya waxaa jirta su'aal ay jawaabteedu wali laalan tahay marka laga hadlo waxyaabaha ku qasbay mudane farmaajo inuu iscasilo macabsi uu ka qabay shisheeyaha ayuu isku casilay ma dalka ayuu u tanaasulay sida uu sheegay mise sababo kale ayaa jira maxaa dhici lahaa haddii uu farmaajo xilka isku dhajin lahaa isagoo tixgelinaya codsiga shacabka Soomaalida farmaajo dalka ayuu ka baxay waxaana uu dib ugu soo laabtay doorashadii 2012 si uu uga qayb galo tartanka doorashada si weyn ayay taageerayaashiisa ugu soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho waxayna mar kale u rajeeyeen guul doorashadii 2012 baarlamaanka Soomaaliya hortiisa ayuu farmaajo ka sheegay wixii uu dalka u soo qabtay intuu ra'iisul wasaaraha ahaa oo ahaa waqti kooban iyo waxa uu doonayo inuu qabto haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada Soomaaliya waxa uu sheegay in dhammaan howlihii uu qabtay muddadii yarayd ee uu ra'iisul wasaaraha ahaa ee marka laga hadlo ay kamid ahaayeen daryeelka ciidamada iyo joogtaynta mushaarka shaqaalaha dawladda ay halkoodii ku istaageen markii uu xafiiska ka tagay taasi oo dabcan cambaar ku ahayd madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii lagu bedelay farmaajo Cabdiwali Cali Gaas oo labaduba musharaxiinta bariga ka mid ahaa marka doorashadaasi laga hadlo farmaajo ma helin wax u dhow iyo xitaa wax la filayay in shakhsi saameynta inta la eg kule Soomaalida gudaheeda uu heli karay sababtuna waxay ahayd in uusan laaluush bixin sida la sheego waxaana codadka uu helay siiyay in yar oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo dabcan ku qancay shakhsiyadiisa iyo khudbadda uu jeediyay laakiin rajada shacabka oo banaanka baarlamaanka ka bilaabata ayaan intaa ku ekaan waxa haddana ay naawilayeen in mar kale loo magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka iyaduna riyo ayay noqotay mudane farmaajo kuma nagaan dalka oo dib ayuu ugu laabtay dalka Mareykanka halkaas uu noloshiisa caadiga ahayd ka watay si la mid ah musharaxiinta kale ee waqtiga doorashada Soomaaliya lagu arko inta kalena dalalka shisheeye ku nool si kastaba ha ahaatee farmaajo sanadka 2016 wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya bila Soomaaliya wuxuuna dib ugu laabtay caasimadda Muqdisho halkaas oo dad badan ay ku soo dhaweeyeen laakiin xaqiiqdii doorashada Soomaaliya ma ahan mid ku xiran taageerada shacabka ee waa mid ku xiran taageero shisheeye iyo jaabka xildhibaanada sanadkan oo ay yar tahay cid buuxin karta dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan in rajada farmaajo ay ku xirnaan lahayd doorasho dadweyne oo ka dhacda dalka Soomaaliya taasi oo dadku ay codkooda dhiibtaan waxa hubaal ah in tirinta koobaad uu ku qaadi lahaa doorashada dalka laakiin waxay leeyihiin hadda way adag tahay in dareen la mid ah kan shacabka oo kale uu ka helo xildhibaanada baarlamaanka oo ay saameyn weyn ku leedahay marka laga hadlo qabyaaladda iyo kooxo abaabulan oo lacag iyo ujeedo qarsoon dalka kale farmaajo dadka yaqaan waxay ku tilmaamaan nin edeb badan oo afgaaban xishood badan oo ay Soomaalinimadu dhab ka tahay nin waxa uu afkiisa ka sheegayo iyo uurkiisa waxa ku jira ay isku mid yihiin ilaa iyo hadda sida la arko ugu dambeyn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin si wanaagsan uga faa'iideystay saameyn mar kaliya soo martay oo ahayd inuu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xilligaasi oo dad badan ay ku amaaneen sida wanaagsan ee uu dalka u maamulay وهاجاك صاحب يال إنتان وحكودن تسمدي يريد أن وجهد ليني سامين تسياسة وفرماج كله هاي شعب كصومالي ده أنت يرمك على كل مدونه ويان له حسين عبد الله نبت قلبي كقيم قال أوري جاك كبيري هالنولاتو سيادوه شو مقالة وصوب فضلا سبسكرايبر نقو si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama share leh
oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga bakhaylin ee hoos noogu dhaaf mahadsanid